wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka Somaliland Cabdulaahi Abubakar Cismaan oo maanta waraysi gaar ah siiyay telefishinka Home Cable ayaa waxa uu sheegay in cudurka COVID-19 oo hore ugu dhacay hadda loo xaqiijiyay maalmo ka hor in uu ka bogsaday cudurkaasi. Xasan iyo bahda Home Cable TV waa dabs shantii bishii June afartii bishii June baan si matadawacnimo u tagay isbitaalka markaan Axmed yar baan dareemay markaa shantii bishii ugu yiraahdeen waxa tahay positive alxamdulillah runtii waa xanuun kuma baahna in ilaah baana qaada markaa uma baahna inta badan in waxyaabaha media waxa lagu qoro markaa waxaan qaasay inaan iskarantiimeeyo isla markaana aan qaato talooyinka wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirta waxaan kulli ummadda Soomaaliyeed ku baraarujinayaa waxaad moodaa in la yar siyaasadeynayo la yar xoojinayo laakiin xanuunkan waa duriyoon waliba duri qofku dhaco waa duriyada ugu fudud waxaana ku xiran tahay qofka antibodigiisa ilaahay qofku ku dilaayo asbaabo badan qofku ku dhiman karaayo kanaaca ku dili karta saxasha lagu dhintaa wanda istaag waa dhaca laakiin xanuun ma garanaysa sida loo buunbuuninaya si xoog weyn maaha qofka antibodigiisa ma ku xiran tahay alxamdulillah 15 bish ayaan mar labaad galay isbitaalka dadna waxaan noqday recover amba boxi waan ka bogsaday marka alxamdulillah aad waan ku fiicanahay waana u mahad celinaa dhammaan dadkii soo duceeyay dadka la soo hadlay dhamaantood waan u mahadnaqayaa waxaan jecel lahaa oo kulley prevention amba waxa la yiraahdo ka hortag wuxuu ka wanaagsan yahay dawada marka dadku inay ka taxadiraan waxa la ku qadaray waa halkiisa laakiin haddana taxadir in la sameeyo waan u baahanahay waliba dadka waaweyn in laga ilaaliyo runtiina aad iyo aad baan u fiicanahay alxamdulillah maanta shaqadii waan aniga shaqadiiba maanta jooga waana shaqeynay maanta aad baan u mahadsantiin wasiirka waxa kale aan weydiiyay bal waxa ka jira wararka sheegaya in madaxweynaha Somaliland uu magacaabay guddi gaar ah oo ka shaqeyn doonta dhismaha wadada isku xidha Berbera iyo Wajaale Berbera corridor kaas oo aan isiga hoos imanaynin waxaana wasiirka uu sheegay in unugaasi uu yahay ka tirsan wasaaradda wadooyinka Somaliland oo isiga ay hoos imanayaan isla markaasna uu gacan ku lahaa magacaabistooda waan maasan tahay runtii waan yar xanuunsanayay waan arkay warbixintaas waxaan moodaa reportkaasi inuu ka been sheegay warqadii uu madaxweynuhu qoray sida runtiina guddi ma wax la sameeyo unit structure-ka wasaaradaha marka taqaanaan waxa weeyaan waxa jirta wasaarad waax section iyo unit marka waana nidaam ay wasaaradii hay'aduba ku dhaqmaan inta badan oo imika waxa jira afar mashruuc baa jira afar mashruuc aan gacanta ku haynay baa jira oo mid waxaan kala shaqeynaynaa Africa Development Bank marka waxaan u bixinay BTT project technical team baa loo bixiyay marka manager baa jira sababta wasiirku inta badan political position arrimaha wasiirku inta badan go'aan ka qaatay laakiin mashruuc kasta waxaan u sameynaa team baan u sameynaa amba unit waxa kale oo jira imika HDF oo kale waxa leedahay lafteedu BTT project technical unit bay leedahay waxa ka caawinaysa wasiirka iyo dawladda guud ahaan waxa ka caawinaya inay shaqadii overseas lagu yeesho amba kormeer iyo joogto lagu yeesho waxa kale oo jira mashruuc kale oo imika inaga dhamaado GIZ waxa jiray lafteedu BTT bay lahaayeen waxa kale oo imika lafteeda jira oo shaqeeya marka mid kasta manager buu leeyahay mashruuca imika Hargeysa bypass laftiisu BTT buu leeyahay marka waxa weeyaan horto nidaam noocaas weeyaan waa unit marka ma jirto wax guddi la yiraahdo oo la magacaabay qodobka ogeysiinta runtii ogeysiinta soo jeedinta guddida waxa lahayd wasaaradda ayaa lahayd iyo hay'adda horumarinta wadooyinka shaqaaluhuna waa shaqaale ka tirsan wasaaradda iyo hay'adda marka laga reebo project manager-ka oo aan u aragnay oo ay aragnimada ku soo qaadanay marka hore waxaan doonaynay engineer Faarax Xuseen inaan ka dhigno sabab kalena ma jirin wadada waxaan isla dareensanahay in ay waxoogaa delay ku jiro marka si loo dirdirgeliyo aniga madaxweynaha iyo abadowga development wax isla garanay in la sameeyo teamkaas oo si joogto ah u dhow la shaqeeyo teamkuna waa team farsamo hal meel baa ka qoran madaxweynaha waa qodobka koowaad oo oranaya waxay toos u report gareynayaan madaxweynaha
reportkuna amba de wax soo mari karaa wasaaradda amba madaxweynaha taasina big issue laakiin anaga waa aragnay si madaxweyne on board u noqdo oo sheeg hawsh kula socdo marka hore waxa soo diri jirtay reportka noo soo diri jiray consultant-ka iyo construction company maadaama tiin sameeyna waxaan isla garanay maadaama wasaaradda ka shaqeynayaan in si toos ah madaxweynaha loogu diro reportka billah soo isaga liftiisu xogaga lagu noqdo sida ku qoran qodobka labaad iyo qodobka saddexaad iyo qodobka 11aad dhammaan tiimkaas waa tiim wasaaradda hoos joogaya wasaaradana xukumaysa haday noqoto xagga monitoring-kooga iyo haday noqoto xagga payment-kooga lacag bixintooda iyo haday noqoto xagga horsocodsiinta marka waxa lagu sameeyay adoo turjumaad khaldan hadda in kastoon aan ogoleen warqadaas aan ahay warqad loogu talagalay saxaafadda haddana haddaad u baahan tahay adiga oo kale waan ku tusi karnaa iyo waad akhriyi kartaa marka waxaan doonayaa inaan intaasun ka jaahil saaro ummadda Somaliland arrinkaasina runtii arrin guddi lagu sheegay ma waa unit waa PIU waa project implementation unit weeyaan waxa kaloo la yiraahdaa BTT na waa la oran karaa waa project technical team marka farsamahan iyagu quality kale inoo dhisay iyo time frame-ka iyo shaqada iyo socodsiinta iyo approval-ka waxyaabahaas iyagu insha Allah yeelan doonaan hadda la ka dhigo waxaan jeclahay inay hawl galaan aniga yar xamaasada marka aad bari khamiistaan balansanahay inaan iskugu nimaadno si ay hawlgalkoogina iyaguna u sameeyaan halkan aan ku sharaynaa insha Allah marka saas weeyaan hawshoodu Xasan Galayd wararka Kibel Hargeysa